Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Higsi Technology. Waxaan ahay Maxamed Xirsi. Maanta hadduu alla idmo waxaad qaadan doontaan oo aan idiin soo jeedin doonaa cashir ku saabsan sida loo sameeyo flyer ama poster. Sida hore idinkugu sheegaba maanta waxaan qaadan doonaa hadduu alla idmo sida loo sameeyo flyer amase poster. Marka koowaad aan soo kiciyo Adobe Illustrator, kadib aan tago File, kadib aan tago New, kadibna halkan aan projectigayga ku caddeeyo projectigayga wuxuu yahay waa flyer. Projectigayga wuxuu ka kooban yahay hal page. Flyerka dhowr page laba page waa laga dhigi karaa, hal page-na waa laga dhigi karaa. Hal page marka laga dhigo waa page-ka koowaad, laba page haddii laga dhigana waxay noqonaysaa gadaal iyo hore in wax looga qoro. Size-ka flyerkayga waxa uu noqon doonaa A4, waxaa ka dhigi kartaa P4, waxaa ka dhigi kartaa P5, waxaa ka dhigi kartaa A3. hadba qofka ganacsadaha ah amase qofka customer-ka ah go-aanka asagaa iskale. Kadib intaas markaan soo sameeyo A4 aan soo doorto waxaan dooranayaa inaan dhaho okay, wax kale kama bedelayo. Halkaas markaan maraysid meeshan waa meeshii lagaga baahnaa inaad ka shaqaysid. Haddaba shaqadeena halkan ayaa ka bilaabi doonaa, ila soco si wanaagsan. Maanta waxaa tegayaa design-ka mar walba aduu kugu xiran yahay, maahan inaad qof kale raacraacisid. Waxaa tegayaa meel la dhaho rectangle tool, kadib geeskaas ayaa tegayaa, kadib calaamad ayaa sameynaya. Calaamadda markaan sameeyo waxaa sameynayaa kalarka blue oo khafiif ah. Haddaan rabo blue green waan ka dhigi karaa, laakiin blue khafiif ah. Intana waxaa ka dhigayaa kalar la'aan. Intaas markaan sameeyo qadda waxaa ku sameynaysaa alignment oo ah inay gees ka tagto ama ay kor tagto. Alignment-iga haddaadan inta ku arkaynin inta ayuu kugu jiraa. Haddii inta aad ku arkaynin waxaad tegaysaa window, kadibna waxaa soo dooranaysaa alignment, waa kana, ama shift plus F7. Intaas markaad sameysid waxaan rabaa inaan wax yar weyneeyo, kalarkana wax yar ka daro kalar oo yara soo baxdoon. Okay, kadib halkan waxaan ku caddeynayaa waxaa waaye shirkaddii ama magaceedii iyo waxaas aan soo geliyo, kambanigii aad u sameynaysay flyerka. Okay, file ayaan leeyahay, open ayaan leeyahay, kadibna waxaa dooranayaa desktop, kadibna waxaa dooranayaa kambanigii meesha kugu jiray loogadiisa, kadibna waxaa sii dooranayaa hadduu alla idmo loogada oo ah tan, kadibna waxaa leeyahay open. Inta kugu soo baxdo tracing ayaa ku sameynaya, tracing, kadibna waxaa leeyahay extend, kadibna waxaa leeyahay right click, kadibna ungroup si ay igu noqoto loogada keligeed. Tan kalena aan soo qaado, haddii loogada aysan ahayn loogo ah flexible oo waxa kalar kasta qaadan karta oo ay kalara badan tahay, ma looga baahna inaad isku sameysid, sideeda kusoo gelinaysa. Wax yar baan yareeyey, markaan yareeyo halkaas baan gelinayaa, zoom baan soo dhahanayaa, control plus, kadibna wax yar ayaan yareynayaa. Adoo haysid alt iyo shift isla haysid ayaa ku yareynaysaa muuska, kadib centerkaas ayaa gelinaysaa. kalarka ka bedelayaa, kalarka ku habboon ayaa ka bedelayaa white. Okay, halkaan waxay ku qoran tahay sidaas aan sameeyo. Waxaa dooranayaa text, kadib inta waxaa ku qorayaa qoraal ah magaca Higsi Technology. Kadib waxaa dooranayaa selection tool, kadib geeska qabanaya shift iyo alt isla qabanaya, waa weynanaya, dib u wadaya, kasaa gelinaya, kadib farta iska bedelaya. Farta aad ku qanacdo ayaa geysanaysaa, kadib textaa soo dooranaya,
intaa keenaya waxaan ku qorayaa wax u ah shirkadda brand baahitiraha nashqadeynta kadib farta waxyar weynanaya cake hoosteeda dhigaya sobe markaa samee farta kalarka ka bedelaya maybe inay ku qancin weyso marka farta anoo kale haddan waa inaa iska bedelaan rabaa waxyar fartaa bedelaya okay sidaas markaa sameeyo symbol yar waa waxa sameynayo ma ahan wax dhib badan tricks mid leh oo qiyaano badan oo dhib badan oo socota laakiin kan midii ugu fudud oo kala keena insha allah kadib waxaa soo dooraa rectangle kale kadib geeska sare ku tagaysaa kadib soo sameey ilaalinta weli geeska ma tagin aan geeska geeyo haddaa isticmaal baad finder waa isticmaali karaa geeska geey bis markaa sameysid kalarka ka bedel white weeyaane kalar oo kale sii kadib waxaa rabaa inta inaan sawir oo kale soo geliyo kadib waxaa leeyahay waxaa dooranayaa kuwan aan isticmaalayaa draw inside hoostaasaa laga helaa inta badan kadib waxaa leedahay file kadib waxaa leedahay place oo soo qaadanay kadib higsiga maadaama ay tahay technology maxaad ka helaysaa waxaan rabnaa inaan ku sameyno sawir project ii diyaarsanaa raadinaya sawir iska caadiya raadinaya sawirada ayaa raadinaya kadib waxaa soo helay kan kadib waxaa leeyahay replace kan waxaa laga yaabaa inuu yaryahay oo weyneyn karta kadib intaas markaa maraysid highlight saar control shift T bracketka fur macnaha send it to the back amase right click leh waxaa leedahay arrange send it to the back intaas markaa sameysid qoraal yar rabaa inaan soo qoro laakiin qoraalka inta soo qorin waxaa soo gelinayaa shape yar inta soo gelinayaa kadib kalarka waxaa leeyahay drop ka soo dooranaya kadib kana dooranaya kalarka haddaad doono kalarka waxaa ka dhigi karaa caadi amase kalarka ka dhigi karaa laakiin waxay ku xiran markaa text soo qoro text inta ku qoro rabaa Lexi technology waa baahitiraha barashada designka markaa qoro farta waa weyneynayaa kadib kor usoo qaadayaa go-aankayga wuxuu ahaa inaan kor saaratan waxaa dhinaca jiid shapeka farta ku dhufo sida usoo jiid kadib fartaan hoos u dhigtan qayb baalkaana control waxaa adoo altaysid flairta hoose check soo sii kadib shift qabo oo soo jiid sidoo kale haddana mar kale sidoo kale sameey markaad soo sameysid fartaan waxay rabaa ku dhigtid isku day kadib waxaa sameysaa waxaa hal mar isku dayda inaad highlight gareysid adoo shiftiga haysid kelib waxaa ku sameynaysaa shapekan hoose dad farta shapeka hoose kadib waxaad tegaysaa meeshan ay ku qoran tahay opacity kadib waxaad dooranaysaa 7 markaas markay marayso right-kii adoo shifti haysid ku dhufo haddana qoraalka kadib shift iyo alt isla qabo geeskasta kusoo baxaysa ujiid weynay waxyar kadib dhexda keen markaad sameysid farta haddaa rabo waad bedeli karaa oo far kale waa ka dhigan karaa muhiimaddu waxay tahay inaad ku qanacdid farta hadday tii hore ku qanacisa laftirkeeda u dhaafan kartaa haddii midda adig ku qanacisa muhiim kadib markaad sameysid kan highlight garee shapeka weeyaan kadib kalarkan ima qanin aniga hadda blugana qanciyo
kalarka farta bedel white kali weli farta ma qancin na bedelo weli bedelitaanka ku jira markaas la bedelo waa ku qanca farta eyedrop soo qabo faraha dooranaya zaid u yaraatay aan weyneeyo kadib inta markaa maraysid tan laftirkeeda oo balaaga hoose shapeka asagoo soo gelinaya capacitygeeda waa yareyn kartaa wax kaa celinaya maahan inaas u yaraysid waxaa iisoo baxaya qaybta saddexaada u gudbaya laba qayba ka dhigay qaybta ugu dambeyso waxaa waaye serviceka aan qabanayo diyaarinaya saddex nooc oo design meeshaan kusoo degi doonaa saddex wax lagu design gareeya soo dhigaya waxaa waaye wax ku cadeynaya inaad helaysid photoshop indesign iyo illustrator saddexdaba designkooda helaysid sida loo sameeyo kadib kana adoo alt haysida soo jiidaysa sida arusha waa copy oo kale calaamas cagaar dhexda markii kusoo baxdo waa isla sameeyeen waaye waa sii daynaysaa control d na waa dhehaysaa copy kale kuu sameeyo waa gartay wax yar waxaa rabaa inaa weynka cambarka aan sameeyo kasaan u jiido kadibna aan sameeyo kana saan u jiido kana saan u jiido kadib waxaa sameynayaa waxaa soo doonanayaa ellipse tool waa circle oo kale intaa ku wareeji sameynaya kadib kalarka bedel wareega u samee wareega waxaa ka dhigaa white stroke kadib white kadib alt anoo haayo soo jiidaya markaa sii daynaya control d aan leeyahay kii u tagaysaa kana wax yar soo celinaya inta markaa sameeyo oo saas ku ekaysiiyo kana dhexda ka bedelaya dhexda white kan sidoo kale kana sidoo kale kadib waxaa aadayaa waxaas rabaa inaan soo geliyo file kadibna open kadibna waxaa tegayaa meel ay ku jiraan exe technology ayaa tegayaa exe technology waatanaa kadibna waxaa dooranayaa indesign illustrator anoo control haayo kadibna waxaa sii dooranayaa photoshop iconadaas ay ku jiro waa sawirada calaamadahoodii kadib waa soo gelinaya saan marka usoo galan karaan jiidaya waxaa geenaya flyerka indesign dhexda iigeen kadib saas u yareey adoo alt haysid iyo shift islaysid soo yareey wixii yareey kaas waa design haddana waxaa soo qaadaysaa illustrator flyerkaasaa keenaysaa intaas blaskasaa kusoo baxay waa sii deynaysaa photoshop qofki isticmaal yaqaano wuu isticmaali karaa kadib yareey kana dhexda geey waxyar soo weynee kadib haddana alt waxaa aadaa photoshop haddana suuqaadka keen dhexda keen iyadana yareey kadib kana ku aad kadib saddexdan highlight garee hoose kalarka ka bedel blue iga dhig markaa blue sidaas aga dhigtid tan laftirkooda ku celi ku dhufo stroke rabo inaa ka bedelo kalarka stroke tag kalarka blue ka dhig kor sida weli blue u yeeshaan waxyar waxaa malaysaa inay caqabado yar keentay laakiin waa weyneynaya waxyar alt anoo hays dhexdooda isla highlight gareena waa weyneynaya kadib isla sim dhexda ku aadi photoshopka waxyar yaree kan laftirkiisa waxyar yaree dhexdana ku aadi kan maxay tahay muxuu yahay kan waa photoshop waxaan ku qorayaa
Adobe Illustrator Adobe Illustrator Adobe Illustrator markaa ku qoro waa weyneynaya fartaas markaas weyneeyo kalarka ka bedelayo white kan laftirkiisa Illustrator ka tagaya bold ka dhigaya meesha bold loo dhigay inta waaya farta tagaysa bold ka dhigaysa markaa sameysid adoo alt haysid soo jiid fartaan inta keen kadibna control D xayrsiki tan wuxuu yahay Adobe Photoshop inta la Photoshop ka dhig Photoshop intana tag haddana meesha Illustrator ka ka dhigaysa InDesign waxyaa simaya marka halkaas marayo waxaan sameynayaa kale waxaan sameynayaa meeshana waxa u yeelaa dhibco yar oo ayagana qurxin ah ayaa u yeelayaa kanna waxaa sameynayaa dhibcahaas oo sameynayaa marka koowaad waxaa soo daadinayaa ellipse tool kadib kaliya si loo haayo shift alt si isku fac u noqdaan sidaasay noqonayaan haddana enter dheh alt qabo soo jiid dib soo aadi Photoshop xayrsiki haddana alt qabo soo jiid sida halkaas markaa marsiinaysid Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign saddexda waxaa laga heli karaa waa Illustrator Designka ay sameyso kadib waxaa sameynayaa kadib cayrada waa saaraa wax yar waa gaabinayaa kadib inta tegaya waxaa soo dooranaya calaamad rectangle toolka kadib geeskana keenayaa wax yar oo qurxinaa ku darayaa calaamada kalarka waa ka bedelaya waxaa ka dhigaya kalarkan dark orange waa ka dhigi karaa orange ka dhig kan laftirkeeda hadday isii baxdo ellipse toolka wareega waxaa ka dhigi karaa orange kana sidoo kale ama waxaa ka dhigi karaa kan kalarkiisa ayaa wareeg ka dhigi karaa kalarka oo designka wareeg ka dhigi karaa saana u kala bedeleysaa oo kaliya kan kalarkiisana waxaa ka dhigaysaa white kadibna waa ku daraysaa cadar ilaa 5 aa gaarsiina kana sidoo kale waxaa sameynayaa buluuga khafiifka uu leeyahay kana waxaa ka dhigayaa orange uu leeyahay saas markaa u sameysid hoosna orange aa ka dhigaysaa intaas markaa sameysid hoostana kusoo harto hoostan maxaa ku sameynaya hoostan inta badan waxaa lagu sameeyaa dhowr wax waxaa ku sameyn kartaa aniga warqad maadaama hadda igu sii yarta wax badan aan ku qorin waxaa ku sameyn karaa contactiga waxaa ku sameyn karaa ama waxaa ku sameyn karaa oo kale about us keena waxaan leeyahay halkaan wax ku dhufan waxaa ku qoraa about us manaa waxa nagu saabsan waayo kadib farta muhiim ay tahay blue waa ka dhigaa kadib wixii anaga nagu saabsan aan qoraa technology inta ka sameysid intaan highlight saar control A bold ka qaad regular ka dhig kadib Photoshop iyo InDesign iyo kuwan ayaga bold kusoo celi maxaa yeelay waa wixii la baranayo kadib maxaa sameysaa farta kalarka bedel kalarka kale iyo tijaabi kalarka ka qurxiyaa laga sameeyaa buluuga laftirkiisa oo khafiifka kala tijaabi tijaabadaas waaye inta markaa sameysid hoostana waxaa ku sameynaysaa marka waxaa la dhaho contactiga company contactigiisa hoostaa ka sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa rectangle tool intaa ku qoraysaa
kadibna kalarka waxaa ka dhiganaa maanta black hadaa ka dhigta kabar maya ma qorxoono okay orange hadaa ka dhigta kabar maybe inaa qorxooda sidoo kale waxaa soo qaadanaya calaamada rectangle toolka intaa soo dhigaya kadib shift control shift bracket for macnaha center to the back aan leeyahay kalarkana blue ka dhigaya markaa sameynaya calaamada directed selection kaa soo qaadanaya kana gees keliga ku siinaya kadib saan u sameynaya falaarta waa ku celiyo falaarta adoo sidaa kala fiirsinaysa sidaas markaa sameysid inta waxaa ku qorayaa waxaa moodaa inay inta ku qor contact us nagala soo xiriir oo kale kadib kor u qaad dhexda gey white kali okay saas markaa sameysid oo halkaas aad marsiinaysid waxaa sameynaysaa ilaga masoo diido waxaa sameynaysaa contactiga qoraysaa contactiga waxaa shapes soo qaadanaya inta waxaa igu jiray shape oo ah meesha uu ku yaalo waa yareynaysaa shapekan internetka kasoo degsan kartaa wax weyn maahan intaasoo dhigaya waa waxay tilmaamaysaa shapekaas wuxuu tilmaamaya soo dhaweeyo waxay wuxuu tilmaamaya locationka uu ku yaalo locationkiisa locationka sheegaysa anaga hadda maadaama channel uu yahay wixii locationka muhiim maahan so marka waxaa ku qoraya kasoo qaad Nairobi Kenya Nairobi Kenya marka ku qortid kasoo kusoo toosinaysaa farta bold waaye waad ka bedeleysaa rectangle aad ka dhigaysaa regular aad ka dhigaysaa Kenya Kenya waa gartay fartan aad ka bedeleysaa wide aad ka dhigaysaa markaa sameysid waxaa soo qaadanaya lineka strategy line kadib dhexdana aad dhigaya soo kugu too shift aad qabanaysaa lineka kadib farta intaa aad ka bedeleysaa waa stroke qaybna waa stroke qaybna waa centerka dhexda gudaha tan gudaha markaa laakiin stroke aad la farta bedeleysaa kan kale wax maba laha okay ismkaa maraysid maxaa soo qaadanaysaa kale contactiga meesha uu ku yaalo waxaa kaloo la rabaa meesha ku yaalo marka laga soo tago telefoonka amase telefoonka marka waxaa soo qaad telefoon maqoraysa waxaa soo qaadanaysaa waxaa soo qaadanaya shapekana x hadaa qoro oo fartii aad tago far waxaa igu jirtaa ii sheegaya oo tape call lahayo oo icon ah markaa tago x waxay noqotay wax kale zda waaye zda waxaa lahaa waa icon waxay tilmaamaysaa oo telephone kadib kalarka ka bedelaya zda white ka dhig kadib inta keen kadib haddana farta soo qaado textiga soo dhig lambarka maxaa waaye 0706734504 yani nambarkeyga kasoo qaada kadib soo dhig inta isku toosi kadib farta bedel white ka dhig meesha isku dhigtid wax yar siki ka siki inta kan textiga kana linekan asna wax yar ka siki markaa sameysid linekan haddana soo koobiyeyso ku dhufo alt qabo soo jiid meeshaan dhaxkeen ku toos calaamada cagaarka ka soo baxda linkas cagaarka waa macnaheeda waa kuwa isku toosan yihiin labada line waa sii diidaysa marka okay tanna waa soo koobiyeyna ku dhufo kan kana ku dhufo adoo shift haysid waa isku qabanayaan alt qabo soo jiid oo wax yar waa qaldamay kan ku dhufo kana ku dhufo alt qabo soo jiid dekan kadib markaad soo siidaysid kan bedel waxaa ka dhigtaa website ama websiteka d calaamada d yani lambarka d oo yahay maadaama farta tip corner lahaayo ay ku xiran tahay haddii far aad isticmaaleynin web haddaa web icon aad ku qortid websiteka waa helaysaa inta websitekeedu waxaa waaye ilaad wasaar waa www
deepseek.so. okay, kadib control 0 dheh horta isla fiiri bahalkan sidaas markay marayso waa ku dhamaystiran flyerkaaga. haddaan doono kalarkan waa ka bedeli karaa oo inta kale waa ka dhigi karaa si ay isku kalar u noqdaan orange iyo blue ayay shirkaddan caalamka oo kale. marka waxaan sameynayaa marka aad rabtid adiga design inaad sameysid laba nooc baa loo sameyn karaa. inaad sameysid waxa la dhaho research internetka tagtid waxa aad sameynaysa haday flyer yihiin ka baxdid qaabo badan noocyo badan oo qurux badan aad ku arkaysaa inaad kasoo qaadatid fikrad adoo kasoo wada qaadanayn fikrad aad kasoo qaadatid wax yar sumina quruxa ku dari rabaa inta xariiq yar ku daraya oo toosan straight line kadib inta dhagsinaya kadib wax ka bedelaya kalarka stroke kalar u saaraya kadib hoos u degaya. marka it's not important inaad qofka designkiisa soo wada qaadatid laakiin qofku wuxuu ka caawin karaa maadaama cilmi meesha ku jiro boqolaal kun oo qof design sameyso adduunka dhan meeshii ku jiraan inaad fiirisid qaabka designka uu sameeyey. marka muhiimna maahan inaad qof raacdid laakiin muhiimadda waxay tahay inaad fikrad qaadatid oo adiga aa heshid fikrad kugu habboon qofkiina uu kugu qanci karo. marka designkaas u dhameysid sidaan oo kale hadda waxaa ujeedaan orange waa kan orange maahan blue waaye haddana waxaa ka dhigi karaa kana blue ka dhigi orange ka dhigi karaa oo kan orange u saari karaa laakiin muhiimadda waxay tahay inaad dhameeyey designkii. kani waa flyer ama poster waxa la flyerkan sidaana loogu daabaca qofka sidaanay ku anfacaysaa. haddii uu ku qanciyay cashirkan subscribe saar haddaa subscribe noo aheyd taabo meesha gambaleelka si cashiradeen mar walba ay kusoo gaaraan oo notificationka aad u heshid. haddii uu aad iyo aad ugu bagta cashirkana like-ta noogu roonaa wixii commentiga oo su-aalahana noogu reeb hoos anaa kaaga soo jawaabi doono insha allah. waa mahadsantihiin soo dhawaada.